Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kusoo dhawaada cashirkeena qeybtiisa saddexaad. Waxaan ka qaadi doonaa marka hore cunug joog iyo alam ugu raximaka allah ilaahay ha ku naxariiste annahu yajibu inay kugu waajib tahay calaa kulli muslimin muslim kasta iyo wa muslimatin muslimad kasta tacalluma inay bartaan haadihi halaathatu masaa'il saddexdan mas'aladood iyo walcamalu bihina iyo inay ku camal falaan. al-uulaata koowaad ana allaha ilaahay khalaqanaa isagaana abuuray warasaqanaa isagaana arsaaqaya walam yatruknaa noogama uusan tegin hamalan ciyaar ciyaar bal iskaba dhaafe arsala wuxuu inoo soo diray rasuula faman ataacahu ciddii adeecda rasuulka dakhala aljannata jannada ayay gelaysaa waman casaahu ciddii caasisana dakhala naara naarta ayay gelaysaa. waxaa kaleeto u daliila inay ciddii rasuulka caasisa ay naarta gelayso. inaa anagu arsalna waxaan soo dirnay ilaykum xaggiina rasuul shaahidan idinku markhaati furi doono calaykum korkiina kamaa sidii arsalna aan ugu soo dirnay ilaa fircawn rasuulan rasuul facasaa waa caasiya fircawn arrasuula rasuulkii fa akhadnaahu waanu qaban akhdan qabasho oo wabiilan daran. athaaniya midaas labaad ana allaha ilaahay laa yardaa kama raali aha ama ma ogola an yushraka in lala wadaajiyo macahu fii cibaadatihi cibaadadiisa in cidkeeda lala wadaajiyo. laa malakun muqarabun walaa malag ilaahay xaggiisa u dhow ha noqde walaa nabiyun mursal iyo nebi ilaahay xaggiisa laga soo diro ha ahaadee lama ogola. wadaliilu qowluhu tacaala inay cibaadada in cidkaata lala wadaajiyo inay dembi tahay oy shirki tahay waxaa u daliila wa ana almasaajida masaajida waxaa iskale lilaahi ilaahay uun falaa tadcuu ha ku caabudina ama ha ku baryina maca allaahi ilaahay maciisa axadan cid kale. athaalithatu midda saddexaad ana man ataaca arasuula qofka rasuulka adeeca wawaxada allaha ilaahayna keliyeeya laa yajuusu uma banaana muwaalaatu inuu xiriiriyo man cidii xaada allaha ilaahay colaaday iyo rasuulahu rasuulkiisa walow kaanuu haba ahaadaane aqraba qariiban qaraabo midka ugu dhow. intaas ayaynu kusoo gebagabeyneynaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.